وحلينا بريا صبر كاسين إنه قوتنا نلاشى وحتى مادياتك يدا وعلى ده تيمور لينك نبغرتويين كي هراء كم دبوها وحيد هذا عيدا وتبى للشبيعي markii la soo jabiyay ayuu god galay soo wax haynin isagoo iska quuso godka ku jira baa la yiri ayuu waxa arkay godkii quraanjo yar oo meel fuuraysa uu eego dhagax yar si koraysa markaas ay soo dhacday markaas ay ku celisay markaas ay soo dhacday markaas ay ku celisay markaas ay soo dhacday waxa la yiri intii uu eegayay quraanjadii 17 jeer meeshii tijaabisay mar 17aadkii bay ka gudubtay tabeetana wuxuu ka fakiray ninkii boorka war maanta ما أن مربى اللي يسوي بيه وانسديبيا قرآن جانا اللي هي طبعا قربة يشبطيه ولا ووضع مرت الضبية طبنات كيف يكبحضي then I will do another time وين أنكو عليه عنه وقوليست تطبضن بوشيرك تطارك ما لا بدن بكبودي واحد بدن مشاكل ورجع وردتك وين عزيمة يالتا فيش وين ديالتا ورشينها أركسان موت استعمالته فكريه isagoo inaan yara oo 22 jira oo jaamacad jooga oo qism falsafa dhigta oo sanadkii labaad ku jira ayay fikradani gashay inuu China bedelo qiyaas arday yaro jaamacad dhigto second year laakiin warrumaystay inuu wax bedeli karo sax ya qalad bedelkiisu midku doonahaado yani wuu u halgamay inuu China bedelo waanu bedelay waxaynu u baahanay cazaa'im iyo sabir waxaynu kala u baahanay waqtigii waxaan filayaa inuu iska dhamaadiyay xusnu dhanni billah inna ilaahi ku kalsoonaato qadiyatu alhijra waa garanaysaa ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma nabi maxamed isagoo qura iyo Abu Bakr oo kaliya iyagoo god ku jira oo la isdul taago ilaahi Abu Bakr la ilaahi rasuulkiisa waa la arkaya ayuu nabigu wuxuu ku yiri ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma أبي بكر ومحمد ومالين سلبوا إلهي يصدح وياه سبحانه وتعالى يعني اللبا الله ولما أنا معيد يسأله ترتوى قولي سنية إذا حسن الظن بالله ما لفي عننا إنه إلهي كقمنا إن ننقصن وحين قالوا باهنا هي العمل الدؤوب عمل شوكتاين إنه سبعين عمل كدقاء القرآن معها حين باهنا عمل ضد السدمانتي مؤسساتنا مساجدنا قرآن كدغيسان دعوة شيغيسان مساكين توحسينيسان قودين تعيد قودينيسان قفكو الشقاده halka kaga habboon waa inuu qabtaa war taariikhda waxay noo tilmaamaysaa cid mafiiq taariikh ku gashay mafiiqinta ilaad mafiiqda soo taqaaniin xaaqin waxa wax lagu fiiqo lagu xaaqo xaaqin bay taariikh ku gashay gabadhi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam gabadhii madowbayda masaajidka uu uga dhisay buulka yar masaajidkiisii gudihiisa ayuu buul yar ka dhisay nabigu oo gabadhaas ay u hoyato gabadhaas ay taal kale iyo wax kale ay qabato ma hayso laakiin waxay og tahay bulshada muslimka inay wax u qabato wax qabadkeedu wuxuu noqday markaas inay masaajidka xaadho maaltii dambe geeriyootay dabeetana saxaabadii inta la maydho la kanfay oo lagu tukaday baa la iska soo aasay nabi maxamed waxba loogama sheegin waa la iska deefudaysaday salaam miskiinada oo masaajidka xaadxaadi jirtay waxay nabiga kaga lugoyn انت الله عصيب على سو نبي مالتي دمي ور مال اسلامتي markaas la yiri waqti geeriyootay ilaahay rasuulkiisa hal aadantumuni bu nabi war maxay igu soo sheegi weydeen haday geeriyootay maxay igu soo sheegi weydeen xalaasheeday tusa xalaasheedii intu tagay nabigu ku soo tukaday la tusay taariikhda haweentani waxa ku gashay mafiiq waxa laga baahan inaad shaqo qabato qof muslima baa tahay inaad wax qabatid ورمساجد كله في تاريخ الوقلا إذن دتك والهلية يدقالوا يتشلن معها لكن دتك قف والله بشري بكونتريبيوشن بولا وحقوق بريا وحلينا قبها وحوي أنا العمل الدؤوب إنه لن ماضنه وإنه صار الرب الشم مسلمة وتاريخ ده قال كرتا عم فلا ولا كيف حويدين عفدي إنه يشغلين دماطي أنا وحندين شيء يا أول هالرجال دينا ما أنت يوقف في عنتها هي هرو صعدة والله أعلم بالله توفيق